waalidiinta dhale Najmo Cabdiqaadir oo 2 sano jir ah ayay dareemeen in gabadhooda yar lagu soo kordhay markii ay qandho ku bilaabantay oo ay cunto oo dhan afsaari weyday. waxaa sidoo kale dhibaato ka qabtay lugta. toddobaad kadib bishii April dhexdeeda waxay ay geeyeen xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee ku taala meel u dhow gurigooda ku yaala Muqdisho. waxaa marka la ogaaday in aanay dhibaatadu ahayn qandho caadi ah. Najmo waxa ugu dambeyn laga helay fayraska cudurka dabeysha ee Wild Poliovirus, iyadoo oo noqotay qofkii ugu horeysa ee Soomaaliya uu ku dhaco muddo 6 sano ka badan. Najmo hooyadeed ayaa isku daysay in aanay jixinjir iyo beer laxaysin muujinin. amar ilaahay la macnin karo hay'ada aad bay u imaanay fiiriyaan cunugta waxay dhahan sida hore way dhaantaa cunugta way fiican tahay xoogaa adeeg kastoo wax yar ayaa ku jiray difaac ay cunugta mustaqbalkeeda inuu ilaahay u fiicnayaan jeclahay ilaahay inuu u fiicnayo mustaqbalkeeda sida ay tahay si fiican ay noqoto aan jeclahay. dab ahaantii inkasta oo dhakhtarku ku guuleystay in uu qandhada ka jabiyo, haddana daawo ma laha. cudur dabeysha waxana uu sababin karaa curyaannimo cabid ah oo u badanna ku keeno lugaha iyo xataa dhimasho. waqtiga ayuuba sheegi doona inta ay gaarsiisan tahay dhibaatada Najmo soo gaartay. cudurka dabeyshu waa mid aad u faafa. cudurka Najmo ku dhacay waxaa la gartay bishii Maajo, waxaana hadda jira 3 qof oo kale iyana la xaqiijiyay in uu ku dhacay cudurka. ilmo kasta oo aan si haboon looga talaalin cudurka dabeysha ayay halis ugu sugan curyaannimo ama xataa dhimasho. waxaana jira caruur badan oo Soomaali ah oon la talaalin. tani halis kuma ah oo keliya caruurta halkan jooga, ee waxa ay sidoo kale halis ku tahay kuwa ku nool dalalka dariska la ah. maamulada koonfurta iyo bartamaha dalka Puntland iyo Somaliland ayay dhamaantood degdeg u qabanqaabiyay ololaha talaal. markii ugu horeysa ee la xaqiijiyay in Najmo uu ku dhacay cudurka dabeysha ayay olole degdeg ah oo talaalka cudurka dabeysha laga fuuliyay dhammaan 16 degmood ee magaalada Muqdisho. kooxo shaqaale ee oo sita talaal ayay beegsanayaan ilmo kasta, iyagoo oo tegaya guri walba iyo waliba xerooyinka ay ku nool yihiin dadka gudaha ku barkacay, iyagoo oo talaale in ka badan 350,000 caruur ah. Mulki Mohamed oo hooyo 8 caruur ah leh oo ku nool xerooyinka degmada yihiin barkacayaasha oo ku taala degmada Hodan ee koonfurta Muqdisho, waxa ay intii u socday ololaha degmada ee keentay gabadheeda sano jir ah ee magaceeda yahay Nasteexa si looga talaalo cudurka dabeysha. miimid dilaalka aad u fiican baraan waaye wax dhib leh kuma arkin caafimaad ku arkaan ma sha Allah waaye wax dhib lehna nooma keenin. fayraska cudurka dabeysha waxay si degdeg ugu gudbin karaa biyaha ama cuntada ee gaartay saxarada qofka sida cudurka. talaalka cudurka dabeysha oo u baahan kaliya in dhowr jeer oo qofkii afka lagu dhibciyo waa mid ammaan ah, waxtar leh oo xoogan. waa in caruurta la talaala dhowr jeer si loo hubiyo in inta noloshooda oo dhan ay cudurka ka badbaadaan. ololaha talaalka ee koonfurta iyo bartamaha dalka Puntland iyo Somaliland ayay socon doona bil walba, waxaana lagu gaarin doona dhammaan caruurta 5 sano jirka ka yar. deegaanada qarna caruurta roon iyo dadka waaweyn. marar hore ayaa sidan oo kale cudurka u dilaacay. haddii laga wada shaqeeyo sidii dhammaan waalidiinta loo wargaarsiin lahaa iyo sidii dhammaan caruurta loo talaalin lahaa, cudurkan dilaacay mar kale ayaa laga guuleysan karaa.